Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, wararka aan igu soo tabino wargeyskaygan Hashtash 24 maanta oo taariikhdu tahay 15 bisha koowaad 2018 waxaan iigu haynaa war aad iyo aad u xiiso badan. Warkaas oo ku saabsan markab siday waxlaha qarxa oo lagu qabtay wadanka Greekta maalintii Isniintii ee bishani koowaad 8 2018. Markabkan oo lagu magac daray Andromeda waxa uu ku badmaraa ama targetka uu adduunka ku badmaro loo yaqaanaa EMO 761466 goor. Markabkani waxaa laga leeyahay shirkad ku taala dalka Greekta. Wuxuu kasoo kici timay markabkani ama uu kasoo dhaqaaqay marsada Isdemir ee ku taala dalka Turkiga 24 bishii 11aad ee sanadkan soo dhaafnay 2017 saacada adduunka ee GMT-gu markay ahayd 3:35. Haddaba buugga uu ku badmaro markabkani waxa uu ku qornaa inuu ku soo xidho ama uu yimaado ama uu soo gaaro marsada dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Arbacadii bisha 12aad ee aan soo dhaafnay 20-keygii sanadka 2017 ee sanadkan soo dhaafnay saacada GMT-gu markay tahay 3 habeenimo. Markabkani wuxuu ku qoran buuggu ku badmarayo inuu iskaga gooshayo dalka Turkiga iyo Jabuuti hal bil, taas oo sax aanan ahayn oo khalad ah oo wax aanan macquul ahayn. Markab kasoo kici timay Turkiga ilaa Jabuuti wuxuu gooshaa marka uu ku badan yahay 7. Haddaba bisha waxaa isweydiin leh markabkani bisha ku dhan halkuu ku sugnaa. Waxa weeyaan markabkani wuxuu ku dhuumaaleysanayay xeebaha u dhaxeeya wadanka Qubrus, Libnaan iyo Israa'iil iyo Turkiga iyo Greekta. Haddaba markabkani wuxuu inta badan ku jiray uu ku dhuumanayay jasiirad ku taala dalka Greekta oo loo yaqaano Nicolas. Maxaa keenay inuu Jabuuti gaari waayo? Waxaa keenay inuu markabkani Jabuuti u gudbi waayo oo uu Mediterranean-ka dhex meeraysto. Waad ogtihiin inay xiisad siyaasadeed oo xun ay ka dhex qarxday wadanka Masar iyo Turkiga. Haddaba wadanka Masar wuxuu sameeyaa intan gelinka dambe inuu baaritaan xoogan ku sameeyo maraakiibta kasoo kici tima dalka Turkiga ee u socda khaas ahaan wadanka Jabuuti, Soomaaliya iyo Yamanta iyo Cumaan. Haddaba markabkani marma uu ugu qoran yahay buuggiisa uu ku badmarayo dalka Jabuuti inuu socdo wuxuu ka cabsaday in baaritaan xoog lagu sameeyo markuu ka gudbayo marinka Canal Suez. Haddaba markabkii raggii soo rakaabsaday iyo shirkadii laga rakaabsaday waxay ku heshiiyeen in badeecada uu sido ama qalabka uu sido lagu dhaadhiciyo marsada Misrata ee magaalada Misrata ee dalka Liibiya. Waxayna halkaa kula heshiiyeen heshiis la gaadheen jabhadda ama hogaamiye kooxeedka marsadaha haysta. Markaas markabkii wuxuu u dhaqaaqay bishan aan ku jirno 8 2018 sanadkan xagga iyo Liibiya. Intuu ka bixinba xeebaha dalka Greekta waxaa gacanta ku dhigay ciidamada badda ee Greekta, kuwaas oo ka shakiyay markabkani maabka uu ku socdo iyo sida uu u socdo. Markabkii baaritaan lagu sameeyey waxaa kasoo baxay inay saaran yihiin markabka 29 ama 29 kontaneer oo ay ku jiraan waxlaha qarxa, iyadoo lagu qiyaasa 410 tan inay u dhigmaan waxa ku jiray. Waxlaha qarxa maxay ka kooban yihiin haddaba ee markabkaa saarnaa? Waxay ka kooban yihiin nooca la yidhaha ANFO Power Gel Manium, xadhkaha isku xidha qarxiya qalabka qarxa, iyo qalab kale oo qarxa loo isticmaalo oo la yidhaho Nitradamonium. Qalabkaas Nitradamoniumka waxaa lagu arkay qarxii weynaa ee ka dhacay isgoyska Zoba ee magaalada Muqdisho ee dadka badan ay ku naf waayeen. Wuxuu ahaa waxyaabihii qaraxaasi lagu daray ee loo isticmaalay ee dadka jirkooga gubay. Marka haddaba marma ay arrimuhu sidan yihiin, dowladdii Greektu waxay qabatay raggii markabka waday iyo kabtankiiba waxaana loo gudbiyey maxkamad. Raggaasi waxay ka koobnaayeen 2 nin oo u dhashay wadanka Ukraine, 5 nin oo u dhashay wadanka Hindiya iyo mid u dhashay dalka Albania. Intiiba maxkamad baa lasoo taagay waxayna caddeeyeen inuu markabkan u rarnaa dowladda Jabuuti, maamulka Jabuuti,
laakiinse warqadaha alaabta lagu soo gatay ee lagaga soo gatay Turkiga ay noqdeen warqado shirkad Ethiopia ku taala, shirkadiina ayna cid cadaysa ilaa imika la haynin, dowladda Ethiopiana ay caddayn weyday. Haddaba isweydiintu waxa weeyaan, waddanka Djibouti ma wuxuu noqday ama laga hubeynayay argagixisada ka hirgasha waddanada Carabta iyo jasiiradda iyo geeska Afrika sida Soomaaliya oo Al-Shabaab, sida Al-Qaacida Yamanta. Haddaba wixii ka soo kordha waan iga waran gelin doonaa.